ku soo dhawow channelka Tutorial. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh. Sidoo kale gambaleelka subxana taabo si muuqaal kasto oo aan soo dhigno uu ku soo gaaro. Waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tobanka dal ee ugu dadka badan adduunka. Maanta waxaan ka hadli doonaa tobanka dal ee ugu dadka badan adduunka. Dalka koowaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka China ama dalka Shiinaha. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay sanadkan aan ku jirno ee 2019 1,420,000,000 62,022 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka koowaad ee ugu dadka badan dunida. Dalka labaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Hindiya. Dalkaas oo lagu qiyaasay dadka ku nool 1,768,737,513 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka labaad ee ugu dadka badan dunida. Dalka saddexaad ee ugu dadka badan dunida ama adduunka waa dalka Mareykanka. Waxaa lagu qiyaasay dadka ku nool dalka Mareykanka 329,93,110 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka saddexaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka afraad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Indonesia. Dadka ku nool dalka Indonesia waxaa lagu qiyaasay 269,536,482 taasoo noqonaysa inuu yahay dalka afraad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka shanaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Brazil. Dadka ku nool dalka Brazil waxaa lagu qiyaasay 212,392,717 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka shanaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka lixaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Pakistan. Dadka ku nool dalka Pakistan waxaa lagu qiyaasay 204,596,442 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka lixaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka toddobaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Nigeria. Dadka ku nool dalka Nigeria waxaa lagu qiyaasay 200,962,417 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka toddobaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka siddeedaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Bangladesh. Dadka ku nool dalka Bangladesh waxaa lagu qiyaasay 168,065,920 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka siddeedaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka sagaalaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Ruushka. Dadka ku nool dalka Ruushka waxaa lagu qiyaasay 143,895,551 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka sagaalaad ee ugu dadka badan adduunka. Dalka tobanaad ee ugu dadka badan adduunka waa dalka Mexico. Dadka ku nool dalkan waxaa lagu qiyaasay 132,328,035 taasoo ka dhigan inuu yahay dalka tobanaad ee ugu dadka badan adduunka.